sidee ilmahaagii ugu aamintay qof kale hooyaday yani ani ma raba inaa letdown u sameeyo ama inaa yani tuso inaa maxaa la yidhahdaa weak ahay that's why inaa dagaalkii gale noqonaysa laakiin badanaa waalidiinta wixii aad yani u arkaan inay adag tahay ilmaha markuu teenager soo gaaro waxyaalaha khatarta oo ilmaha ama maskaxiyan u dhaawici kara ama qalbigood u dhaawici kara ama yani mustaqbalkoodii saameyn ku lahaan karo already waxaad rabaa waalidkii inuu ka hor istaago oo yani ku baraarugsanaada muhiim ah waalidkiina waa ganjeeladii albaabadii oo derbigaas waayo marka waxaa la rabaa wixii kheyr ahna inaa usoo gelisid caruurtii wixii shar ahna inaa markasta ka hor istaagtid ujeeda marka waxa ugu muhiimsan ama maqnaashaha aabaha ahaado ama maqnaashaha hooyada ha ahaato waxa ugu muhiimsan qofkaas oo hadda ilmaha lifekooda ku jira qof oo mas-uuliyadiisii waalid oo mas-uuliyadiisii yani ku baraarugsan waalid oo mas-uuliyadiisii kasoo baxaya ma yahay oo aad iyo aad horta yani mar kastaba burburka qoyska saameyn weyn waxay ku leedahay ilmaha meel kastay ka taabanaysaa weliba emotionally yani xagga dareenkooda xagga kalsoonida naftooda taas marka qofka kale u dhiibanaysid waxa waaye inaa aad iyo aad u xasuusnaano qofkaas aad dhehaysid ilmahayga iisi ilaali mas-uuliyaddii tarbiyada aad saartay runti wanaagsan oo waxaan daawadayaal kula soo dhawaada Brit Somali TV oo mar walba mid idiin soo bandhiga barnaamijyo kala duwan oo bulshada qaybaheeda kala duwan markaa la jaan qaadaya hadday ahaan lahayd dhaqaalo hadday ahaan lahayd siyaasad hadday ahaan lahayd kobcinta waalidiinta kobcinta faamiliyada iyo horumarkooda barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadaynaa mawduuc qof kasta oo Soomaaliyeed oo waalid ama jecel mustaqbalka dhow inuu waalid noqdo iyo kan fogba saameyn toos ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkii hooyo loo celinayaad aragteen markii dalkii loo celiyay inay mararka qaarkood kaamam iyo meelo loo bixiyay dhaqan celis la geeyay kuwaas oo ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan sidee bay ku dhacday aabaha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed waxaan weydiinaynaa sidee ayay ku dhacday inaad ilmahaagii qofaadan aqoon aad uga soo tagtid lacagna aad ku siisin halkaa lagu hayo adigoo doonayo wanaagooda adiguna aadan la joogin sidee ilmahaagii ugu aamintay qof kale oo dukaan u furan yahay sidee ilmahaagii iyo mustaqbalkoodii ugu aamintay meel aadan waxna ka arki karaynin waxna ka qaban karaynin hadday wax ka dhacaan misaal ahaan waxa laga yaabaa inaad ingiriiska joogtid ilmahaagina aad Soomaaliya geysay maraykanka adoo jooga ayaad carruurtii halkaa geysay waa idiin soo shaqaynayaa laakiin waxaan idinku aaminay nin iyo islaan yar oo aynaan garanaynin dhaqankoodii ma garanayaan afkoodii ma garanayaan culture clash baa jira hadhowta ilmahaas waxay u xanaaqaan waalidkood diintii dhaqankii Soomaalinimadii qaarkood u xanaaqaan in yaroo fara ku tiriso oo markaas wanaagsanaatana waa la arkaa halkaan aan joogno waxaad ogtihiin mar kastaba ilmaha waxa lagu dhahaa qof aadan aqoon hala hadlin waxna ha ka qaadanin sidee bay ku dhacday gabar yar oo 17 jir 16 jir 15 jir inaad geysid malcaamad ku taala halkaas oo dabadeedna dad aysan aqoon lagu dhex tuuro dadka badankooda waxay arkaan arrintaas mas'uul darro waxaana ka dhasha waxyaalaha xagjirka ee markaas gaar ahaan wiilasha oo kale inay xagjir noqdaan oo fikir khaldan markaa lagu shubo ilmuhu waa warqad cad adigu wax ku qoro yaan qof kale wax kuugu qorin arrimahaas oo dhan si aan wax ugu ogaano waxaan soo casumay marti culayskeeda leh aqoonteeda leh isla mar ahaantaasna wax fara badan bulshada Soomaaliyeed maanta inay ku kordhin doonto aan rumaysanahay waa Marwo Maryan Cabdi oo ka tirsan SYDRC community la yiraahdo oo halkan ku yaala magaalada London gaar ahaan waqooyiga magaalada London ku yaala dalka oo dhan Ingiriiska ka shaqeeya kana mid community-da Soomaaliyeed kuwa hormuud ka haduusan number 1 ahayn ee markaas mar walba bulshada Soomaaliyeed heel iyo hool la garab taagan in badan ayaan u dhalinay community-da Soomaaliyeed ee aan hawlaha wax u qaban kan waxa weeye xagga wax qabadka hormuud ayuu ka yahay community-gan ayagoo shaqeynaya ayaan arkay in fara badan ayaana barnaamijyadooda qayb ka ahaa oo aan arkay ama soo tabinaynay sida awgeed Maryan aan soo dhaweeyo Maryan
waa coach weeyaan waxa weeye dadka wacyigelinta iyo tababarada dhalinyarada iyo waalidiinta u sameeya isla mar ahaantaana si khaasa ugu takhasusay dhinaca kobcinta iyo weliba barbaarinta ubadka isla mar ahaantaasna waalidiinta macalimad u ah waxay la shaqaysaa SYGRC isla mar ahaantaasna aanu jecelnahay bal su'aalo fara badan inaad weydiisaan hoos ayaad kaga qayb qaadan kartaan fartiimihiina iyo su'aalihiina si la idinkugu soo jawaabo waxa aad qabtaan maryan cabdi ila soo dhaweeya marwo aad baan kuu soo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdi xafiid aad u mahadsan tahay adiga iyo British Somali TV aad ba u mahadsan tihiin waana dhowahay waayahay maryan waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo waxyaalaha aad qabataan sida joogtada maxaa ka mid ah waa ku mahadsantahay su-aasha cabdi xafiis waxyaalaha qabanna waxaa ka mid ah sida oo magaca SYDRC ka muuqata waxaa la shaqeynaa dhalinyaradana waxyaalo badan baa kala shaqeynaa ama ha ahaato wacyigelinta oo ka mid ah like waxyaalaha workshopska oo xagga educationka xagga waxbarashada xagga futurekaada waxyaalaha jecesha inaad samaysid career eventsna waa sameynay dhowr jeer educational achievement oo badanna waa la sameeyey oo one of the main things achievementska waxaa ka mid ahayd xafladaha oo loo sameeyo abaalcelinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaalaha oo aan horumarkay ku gaareen xagga tacliintooda marka waxyaalaha kala sameynana waxaa ka mid ah sport activitieska dhalinyarada yani waxyaalaha ugu muhiimsan lagu leeyahay ilmaha in lagu mashquuliyo xagga waxyaalaha activitieska ama sportiska ha ahaato ama waxbarashada ha ahaato marka dhalinyarada intaasaa ka caawinaa iyo haddii iskuulada waxyaalo u baahan yihiin one of our big services or like really successful services waxaa ka mid ah mentoring empower bla dhahaa marka mentoringkaasna iskuulada iyo dhalinyarada iskuulada u baahan inay caawinaad xagga wajahaada xagga inay mustaqbalkooda iyo tacliintooda aad uga sii fakeraan baa ka caawinaa xoogga labaadna waxaan saarnaa waalidiinta dhalinyaradaas guryihii ka imaanayaan of course waalidiintooda ku xiriirsan yihiin marka waxaan sameynaa wacyigelin oo waalidiinta ah oo qeybo badan ah haddii tahay one to one cases oo la support gareynayo ama haddii tahay koorsooyin oo waalidiinta u sameynayno workshops ha ahaato ama koorsooyin oo trainings ah ha ahaato hadda midyaalaha ugu muhiimsan hadda sameyno waxaa ka mid ah tarbiyada caruurta oo la dhaho koorsooyin oo la dhaho strengthening family strengthening community oo parentingka aad u caawinaya marka yani kobcinta iyo empoweringka waalidiintana waa sameynaa hagaag mawduuceena maanta haddii aan usoo daadegno oo intaa uga soo baxno shaqada wanaagsan ee SYGRC ay u hayso communityga Soomaaliyeed ee ku nool aannahuba xataa wadamada kale dadka jooga Soomaalida ee qurbo joogta inay wax badan ka baran karaan cidii doonaysa SYGRC inay la xiriirto magacooda kan gadaal ku yaala hoosna waan ku soo qoraynaa Google gareeyo oo baro akhbaartooda la keeno waayahay intaa kadib ubad baa waxaa loo celiyaa dalkii hooyo dhaqan celis baa la yiraahdaa waalidku markuu arrintaa ka shaqeynayo wuxuu arkaa waxyaalo badan baa u muuqda kor waayeen waa wada indhaa la yiri waxaa la arkaa gabadha yareydoo markaas dhalinyaranimo ay ka muuqato wiilkii yaraayo sidaasoo kale waalidkii qalbiga ayaa markaa daqnanaya waxayna isleeyihiin mustaqbalkaagii weeye noloshaadii waa ilmahaagii badbaadi dabadeedna war bay raajaan waxayna soo waraystaan ragga iyo dumarka kale ay soo waraystaan waxayna ogaadaan xarumo dhaqan celisa inay jiraan oo dalkii ku yaala ayagoon inta badan la sahamin baa laga duldhacaa halkaas dhibaatooyin baana ka yimaada maxay arrintaanu ay salka ku haysaa oo dadka Soomaaliyeed madiina inooga digo aad iyo aad waa ku mahadsan tahay cabdi xafiis horta waxa waaye labada arrin inaan laba u kala bixino wadankii yani aadinta oo wadankii la aadayo oo dhalinyaradii wadanka lasoo baraayo oo luqadii iyo culturekii iyo yani iyo wanaagii wadanka loo celinayo ee soo baranayaan taas waa mid laakiin haddii noqoto the reason ama sababta aan rabay inaa ilmahan u celiyo wadankii sidii yani badanaa hadda erayaasha isticmaalno Soomaalida oo aniga xoogaa yar waa kasoo horjeedaa oo ah dhaqan celin run ahaantii haddaa gadaal u noqono dhaqan celinta khasab ma aha inaa wadankii loo celinayo caruurta inay dhaqan celinta keliya ma aha in wadankii loo celiyo
dhaqan celinta ama يعني caruurta in laga caawino sidii ay mustaqbal fiican u lahaan lahaayeen sidii dhaqankii ee markaas waalidka dhibsanayo ya sidee dhaqankaas uga bedeli karaa anoo ku khasbanaanin inaan wadankii ugu celiyo waxa uga bedeli karaa astaamo siyaalo badan ba uga bedeli karaa oo ka mid ah maxaa waaye gurigeyga maxaa ka dhex dhacaya maxaa ka caawini karaa maxay tahay in ani nafteeda ka bedelo asa waalid ahaan maxay tahay in aniga dhaqankayga iyo hadalkayga iyo xiriirka la leeyahay ilmaha sidee uga bedeli karaa wax anoo ku khasbanaanin inaan wadankii u celiyo yes sometimes way fiicanta ilmahaas hadduu yani dhaqanka yani waxyaalaha aragtid ilmahada inaad ka bedeshida ku xiran tahay yes marmar way dhici kartaa inuu environment kale inuu u fiican tahay ina la geeyo weliba environment aa adiga ku kalsoon tahay adiga aa og tahay ilmahada inuu ku nabadgalayo oo yani ammaan iyo safety uu ku helayo taasna waa xal laakiin taas waxaa ka muhiimsan yani tilaabooyinka ku ugu dambeeya ka mid yihiin haddii tahay yani hadda jamjaro camal la koraayo oo levelska leedahay taas waa xalyaasha ugu dambeeya ka mid tahay laakiin waxaa jira waxyaalo badan iyo adig xuluul oo badan oo ka hormari kara intaa yani stepkaas la qaadanin oo ah aniga maxaa nafteyda ka bedeli karaa asa waalid ahaan maxaa guriga ka bedeli karaa maxaa ka bedeli karaa other resourceska oo iga caawini kara xagga ilmahaygii iyo dhibaatada haysata yaa iga caawini karo kale hadda anigii maxaa la yidhahdaa aan samayn karin saas hadhow markaa aragtid resourceskaasoo dhan inay wax kuu tiri waayeen adigii markaa wax kasta bedeshay waxba kuu tiri waayeen okay raadsa xuluul kale oo taasna xitaa xuluulkaas kale ama wadankii haloo noqdo ha ahaato ama meel kale haloo noqoto taas laftirkeeda waxa waaye shuruud inay lahaato shuruuddaas usoo noqon doona insha allah marka waxaad leedahay kama soo horjeedid in caruurtii dalkoodii la geeyo oo holiday loo geeyo dhaqankoodii afkoodii dalkoodii ay soo arkaan laakiin meelaha la geynaya ee mararka qaarkood halistu ay ka imaan karto in laga feejignaado haddii waalidku uusan la jooginna ay dhibaatooyin keeni karto waxaa daawadayaal xusid mudan nawaal cali oo hadda ka hor aanu barnaamij ka duubnay oo SYDRC ay ahayd organizationkii isku dubariday soo qaban qaabiyey aniga iyo nawaal inaan isla fariisano in ay nawaal aad iyo aad uga dayrisay xarumihii lagu hayay ee marka ay ku jirtay kuwa kaloo fara badan ay jiraan soo dhawow marka maxaa waalidkii markii aysan ilmahoodii la socon dhibaato ah oo imaan karta marya su-aasha ugu horeysa ee taa inaan isweydiino waxa waaye maxaa keenaya ilmahayga inaan ama soomaaliya aan geeyo ama wadanka ka bixiyo su-aasha ugu muhiimsan waa taas maxay tahay waxaa raba inaan ilmahayga ka bedelo because waxaa lagu leeyahay يعني أساليبته حتى والد كاستعماله وحا لقولي والد وحا جرى أو فاير فايتر يا دب بوربا إنو دتشيو يعني دب مالك كعسن بوربا إنو الدنيا يا والد كلنا وحوي ووالد أو كف كرايا مستقبلك المهاس محي مستقبلك له للدونان يعني وحيالا بدن إنا ككل فكرتيد marka su'aasha waxay u soo noqonaysaa waalidkaas waxa rabtaa adiga ilmahaadii yani markaas kaliya waxyaalaha khatarta ay halkan ugu joogaan kaliya inaad ka bedeshid mase waxaa rabtaa qof oo markuu weynaado oo insha allah tacaala oo qof yani oo qoys lahaan doono laftirkiisii inaad siisid waxyaalihii oo cilmigii u baahnaa xasiloonidii u baahnaa inaad ku kobcisid kalsoonidii ilmahaas u baahnaa because taas waxay ku leedahay saameyn badan لكن أنا generalization سمينين أو يعني عن بهن والدين تو الصومالي دو لما أسكو ضمن لكن بدنا واحد كيسا والدين تو حلول كاس يعني بدنا أو يعني هذا وحي بدينهن والدين أو رباط just like a quick solutions for things لكن مركا أركتدي يعني in the long term كا وحا أركيسا وحيا لبضان إني المهس أباهينهن وكالي ما هكذا إني ودن كلا ببحيو marka waxa ugu muhiimsan meesha ilmahayga u diray meel kastay tahayba meel oo ammaankeeda seeb buu yahay ya ilmahaas waxa ugu muhiimsan xiriiriyada dadku la lahaan doono ya ma anigii baa la joogaya oo markastaba yani supervision ama aniga ka warqabay xaalkiisi oo xagga iskuulka xaalkiisi nabadiisa farxadiisa kalsoonidiisa yani waxaasoo dhan aniga asa waalid ahaan mala joogayaa ilmahaygii oo halkaas u diray oo ma ka warqabaya xaalkooda ama guriga ahaato ama banaanka guriga ha ahaato mase qof kale baa u dhiibanaya taas marka qofka kale u dhiibanaysid waxa waaye inaa aad iyo aad u xasuusnaano
qofkaas aad dhehaysid ilmahayga iisi ilaali mas-uuliyaddii tarbiyada aad saartay weligeedna mas-uuliyadda tarbiyadaas qofna ma kasoo bixi karo xitaa walaalkaa hadduu yahay xitaa yani hooyadaa haddii tahay yani any xitaa qaraabo kasta haddii tahay laakiin mas-uuliyaddaasa adig uga soo bixi lahayd iyo wanaagga ilmahaada iyo yani kalgaceylka u haysid iyo sabriga u haysid iyo maxaa la yidhahdaa iyo waxyaalaha adiga mar kasta ee tahay inaad la joogtid qof kale ha ka sugin inuu waxyaalahaas u qabto marka yani ilmaheenna haddaa mas-uuliyaddaas aan la wadaagi karno oo ilmaheenni anakii aan lagu afgargaraynayno oo ilmihii aan la soconayno aan ka warqabayno xaalkooda aan la joogayno yes way fiican tahay yani haddii bii'adii wanaagsan tahay waalidkii asagii oo meesha joogo oo ilmihiisii caawinayo oo mar kasta maxaa la yidhahda wax kastaba oo u yahay a good supportive mechanism yani xitaa sometimes saa hadda ka dhawaajisay cultural shock way leedahay yani ilmo halkan ku dhashay طبعا waxyaalo badan dhaqamo badan ee la kulmi doonaan waxyaalo badan lagu dhaliili doono waxyaalo badan oo ayakii ku cusub luqadii baa ku cusub dhaqankii baa ku cusub waxyaalo badan baa ku cusub marka yaa way qofka oo la joogaya ilmahaas oo mar kaste day by day ula soconaya taas waa inaan xisaabta ku darsano waagari waxaan daawadayaal waxaanu qaybaha dambe barnaamijkan ku eegi doonaa tababaro iyo xisooyin aad iyo aad u qiimo badan oo marwo maryan iyo tiimkeedu ay bixiyaan maadaama ay tahay iyadu macallimad certified ah isla mar ahaantaasna si gaara loogu tababaray in ay waalidiinta iyo ubadka la taliso kana taliso horumarkooda waxbarasho iyo horumarada kaleba noloshaba ayaa noo soo socda maryan waxaan jecelahay waa gartay mushkilada ka jirta dadkan la celinayo waxaa marar badan waxaa la arkaa hooyooyin Soomaaliyeed oo ah dumarka dunida ugu adkaysiga iyo kartida badan oo keligood ubad fara badan korinaya Allah noo wada barakeeya burburkaas qoysaska oo aabihii inta badan uu maqan yahay ama se uu yahay maqano jooga ama reerkiiba uu saa ku burburay uusan xisaabtii maalin walba ku jirin reerka dhibaato intee leeg ayay wiilasha yararka iyo gabdhaha aabaha maqan oo ku yeelaa saameyn ku leedahay aad iyo aad horta yani mar kastaba burburka qoyska saameyn weyn waxay ku leedahay ilmaha meel kasta ka taabanaysaa weliba emotionally yani xagga dareenkooda xagga kalsoonida naftooda xagga yani mustaqbalkooda waxyaalo badan bay yani mar kasta qoyska hadduu burburo waxyaalo badan saameyn badan bay ku leedahay laakiin waxa ugu muhiimsan waalidka so because sometimes waxaa arkaysaa laba waalid oo labadiina joogaan oo howshii waalidnimada si fiican u qabanaynin marmarna waxaa arkaysaa qoys kale oo ama hal hooyo ama hal aabbo joogo laakiin mas-uuliyaddiisii waalidnimo si fiican u fahamsan yahay oo uga soo baxayo oo wax kasta ilmahaas u baahan yihiinna kabi kara mujeda marka waxa ugu muhiimsan ama maqnaashaha aabbaha ahaado ama maqnaashaha hooyada ha ahaato waxa ugu muhiimsan qofkaas oo hadda ilmaha lifekooda ku jira qof oo mas-uuliyaddiisii waalid oo mas-uuliyaddiisii yani ku baraarugsan waalid oo mas-uuliyaddiisii kasoo baxaya ma yahay oo tarbiyadii ususka tarbiyada yani hadda markii lagu leeyahay qoyska carabiga waxaa lagu dhahaa usrana waxay ka imaatay min suur yani waa darbiga oo yani heraariya marka yani waa wixii u tahay protection u tahay واتينا القرآن كان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة مركا يعني أسرة وحوايا أما قيسك وحوايا وبروتكشن barriers أو إلمهي أو يعني نبضودي عفمات كودي حسلوني ذا مسكح دودي شخصيات دودا personality gooda waxaasoo dhan baa ilmihii waxaa rabtaa inaad ka heraarisid wixii khayr ahna u soo gelisid yani waxaa lagu leeyahay waalidka xitaa waxa waaye waa gatekeepers yani albaabka oo hadduu tahay qoyska hadduu yahay like derbigii hadduu yahay waalidkiina waa ganjeeladii albaabadii oo derbigaas waaye marka waxaa la rabaa wixii khayr ahna inaad u soo gelisid caruurtii wixii shar ahna inaad markasta aad ka hor istaagtid marka waalidka hadduu ku baraarugsaneen mas-uuliyaddiisii iyo waxyaalihii laga rabay oo ilmihii haddii gurigii joogaan ayagoo yani hadda especially with technology ya ilmihii adoo gurigooda kuu fadhiyaan baa wax kasta khayr iyo sharba ay ka salgaari karaan
oo wax kastaba way arkayaan wax kasta maskaxdoodii brainwashka awal waxay ahaan jirtay oo markuu meel aado markuu dad la arko laakiin hadda ilmihii ayagoo qolkoodii jiifka fadhiya baa wax kasta maskaxdoodii wax kastaba laga buuxin karaa marka waalidka waxaa la rabaa inuu la tacaaleyn karo yacni waxyaalaha oo casrigiisa socda waxyaalaha oo yacni oo makhaatirta ama waxyaalaha khatarta oo ilmaha ama maskaxiyan u dhaawici kara ama qalbigood u dhaawici kara ama yacni mustaqbalkoodii saameyn ku lahaan karo already waxaa la rabaa waalidkii inuu ka hor istaago oo yacni ku baraarugsanaada muhiim ah taasna waxay ka imaanaysaa markaa ogaatid maxaa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan oo tarbiyada ay tahay يعني أساس كتربية ده محي كسابسنتها إنا كلا فهمنا سفيعا. واي وأرنت كلو أربعين وجذبنا ما دام أضواء المعلومات هاي إسلام رهانته أنا لتري واردينته يو أبد كأت هاي كنا تخصصتي أنت أنا تعرف وجود بينين وحكى هذا الشيء أونلاين كيو تكنولوجيا العصرية اللي باتلو كينيو سامين بدن أيام اللي يرضى وحكوله أونلاين radicalization وحلي هذا إن حاجة أونلاين ك xag jirnimo markaas lagula taliyo ay ka qayb qaataan mararka qaarkood ama dadaan dantooda wadinin oo ugu soo dhuunta ama diin ama dhaqan ama dhibaato kaloo dunida ka dhacday ee looga faa'iidaysto muhiimad intee leeg ayay leedahay waalidku inuu ubadkiisa kala hadlo waxaas oo la yeesho wada hadal furan oo aan la isxukumaynin oo la iscanaananaynin oo la isku qaylinaynin si wada hadalkii uu hala qaado ilmihiina wixii khaldanaa waalidku uga soco soo dhowow aad iyo aad يعني واساس شيكت عبد الحفيظ وذا هذا الكاس يسويدار سيجا المهابة مسكحدو ذو وحا كتشرتا أركتيدو ذا anything or challenging أو يعني حتى عدو ذاتك لإنتي وحا وغشيكيين أو لغي يابو يعني مركز المهاس والد كود سيدو يعني لقن كو صوبري دين تسوء صوبري أخلاق دا سوء صوبري هدو قفك الأو إمادة أو إنترنت كي أو يعني وحيالك لكو أخريناي وحيالك يعني وشيغاي المهاس ilmahaas waxaa laga yaabaa haddii xiriir fiican oo ka dhaxaynin ayaka iyo waalidkii ilmahaas inuu kalsooni oo ilmihii oo waalidkii intuu ugu tago oo dhaho abo ama hooyo waxyaalahaas baan soo maqlay waxyaalahaas baa challenging ii ah oo maxaa ma fahansani bal maxay kula tahay bal isla wadaagno taas ma imaan karto because saa sheegtay hadduu xiriir fiican jirin wada hadal ma jiraayo wada hadal wuxuu imaadaa markii kalsooni iyo xiriir fiican oo waalidkii iyo ubadkii ka dhaxeeya taasna waxay noo soo celinaysaa asaaska oo maxaa la tarbiyada caruurta asaaska tarbiyada caruurta waxa ugu muhiimsan waa saddex rukun waa saddex arkaan waaye marka rukunka ama afar waaye afartaas waxa ugu muhiimsan xiriirka oo waalidkii ilmaha isla leeyihiin يعني 70% of tarbiyada caruurta waa xiriirka ilmahaas la leedahay haddaa xiriir wanaagsan la leedahay ilmahaas yani kalsooni wuxuu helayaa uu kula wadaagi karo especially ilmaha markay yar yihiin dhib ma laha yani ilaa aday 10 sano camal min markay yar yihiin oo hadal bilaabaan ilaa 10 sano waa arkaysaa qaarkood yani xitaa haddii hadalkooda badneen waa heli kartaa saa ula hadashid waa la hadli kartaa laakiin badanaa waalidiinta wixii aad yani u arkaan inay adag tahay ilmaha markuu teenager soo gaaro ya hadalkii waa loo soo koobayaa waalidkii si fiican ulama sheekaysan karo yani ilmahaasna u fiirsa markii teenagerka jiraan yay u dhow yihiin ma waalidkii u dhow yihiin mase saaxiibay u dhow yihiin moor saaxiibay u dhow yihiin soo maaha yani moor saaxiibaha bay u dhow yihiin aan haddaa isfakarno oo dhahno okay ilmaha teenagerka ah markii waqtigaas yani development agekaas markii marayaan yes ilmaha waxay jecel yihiin inay moor waqti la qaataan moor sheekadii iyo discussionkii moor waxay la wadaagi karaan qofkaas kale oo asaagiisa ah oo the same kind of maxaa la yiraahdaa environment kula jira buu la wadaagi karaa more than waalidkii laftirkiisii marka sidee asa waalid ahaan maxaa waa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahayay inaa ilmahaada dhegaysan kartid ama sax ha ku hadlaan ama khalad ha ku hadlaan it doesn't matter inaad qof oo ilmahaadii oo yani non judgmental way oo active listening aad samayn kartid aad just aad dhegaysanaysid yani hadalkoodii adoo yani oo aad ka kala goynin ama su-aalo uga kala bahalkeenin aad qaylinin waalidiinta qaarkood haddii dhalinyarada qaarkood badana dhalinyarada la shaqeyno waxay kuleeyihiin hooyaday dhibka igu haysta iskuulka lama wadaagi karo because waxaan ogahay
inay xanaaqayso wariyaa ma fuli baa tahay ma iska celisid ma kankalaysid ma kaaskaysaysid marka waxay ku dhahay yani hooyaday yani ani ma raba inaa letdown u sameeyo ama inaa yani tuso inaa maxaa la yidhahdaa weak ahay that's why inaa dagaalkii galee noqonaysa that's why inaa waxyaalo badan aniga intaa wax samayn kara inaa la samayn because haddaa hooyada ula tago way igu qeylinaysaa يعني erayo aan jecleen bay igu dhahaysaa waxyaalo badan oo khalad ah oo negative ah baan kala kulmaya marka waxa ii roon inaa aniga wax kasta aan ku jiro inaa aniga iska manage gareeyo because I don't want to aad iyo aad ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan wax muhiima kaa weydiiyo arrinta ku saabsan waalidiintu inay aqoon helaan koorsooyin qaataan ay ku kobcinayaan aqoontooda iyo say ola jaan qaadi lahayn ubadkan halkan lagu korinayo oo aanu ka soo guurno maskaxdii annagana lagu soo barbaarshay iyo bay'addii quruxda badnayd oo waxa guriga ka xun dibaddana ay ka xun yihiin halkan waxa guriga ka xun dibadda waa ka fiican yihiin waalidkii ilmihii waa iskhilaafsan yihiin ilmo badan oo Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin laba nololood nolol waxa weeye nolosha guriga oo ah qoys muslima Soomaali ah dhaqan diin iyo maxaa la lahaa sharfan iyo noloshii bannaanka iyo saaxiibada oo haatan adigu aad ka hadlaysay oo ahayd inay in badan oo ka mid ah saaxiibadu dhinacooda u badan yihiin noloshaas oo ah mid ka duwan xaqiiqatan midda guriga ka jirta saamaynta ugu badan kula waqtiga ugu badan ay geliyaan waalidka sidee wax loo fahansiin karaa maadaama ay doonayaan inay horumarka ubadkooda ka qayb qaataan koorsooyinka aad bixisaan maxaa ka mid ah maxaa looga baahan yahay waalidka Soomaaliyeed soo dhow aad iyo aad marka sidii aayad sheegayso in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim soma aayadda yani dhexdeeda marka waxa ugu muhiimsan asaaska haddii aad tarbiyada usoo noqono waxyaalaha ugu sii muhiimsan hadda midii waxaan ka hadlaynay xiriirka waalidka iyo caruurta tan kasii muhiimsanna waxa ah waalidkii inaa adiga isbedelka inuu adig kaa imaado isbedelkii oo ah sidee maxaa u baahnahay caawinaad hadda u baahnahay inaan qiro okay waxyaalo khalad badan baa jirta xagga tarbiyada caruurtaan sameynaya ilmahayga waa ku qayliyaa waxyaalo badan uma fiirsado waxyaalo badanna maxaa la yidhahdaa waa wax sax waa u sameeyaa laakiin waxyaalo kale u baahanahay inaan sii kobciyana way jirtaa marka waalidkii waxaa rabaa inuu yani inuu raadsado asaga waxyaalihii oo qoyskiisa iyo horumarka qoyskiisa ka caawini lahaa weliba tarbiyada caruurta hadda saan sheegna afarta waxaan dhahnay waa xiriirkii oo waalidkii ilmaha waa adigoo naftaadii waxyaalo badan ka bedelaysid labada kalena waxa weeye sidee baa dhaqankii wanaagsan markasta u dhiirigelin karaa ilmahayga inuu dhaqankaas wanaagsan sii bato iyo sidee dhaqankii oo fiicneen isdhaha dhaqankaas uma fiicna ilmahayga ama mustaqbalkooda uma fiicna sidee baa uga yareyn karaa ilmahayga ama ugu dhiirigelin karaa inuu dhaqankaas iska dhaafo taasna mid oo aan meel kale ka helaysid ma aha unless program oo parenting ah kasoo qayb gashid siduu yani alcilmu nuur wax badan baa ku iftiimaya in a nutshell programmada samaysaan SYDRC maxaa ka mid ah seesa looga qayb qaadan karaa maanta waxaan ahay waalid cusub ka soo qaad waxaan doonayaa inaan ogaado iskuullada wax ka ogaado safety wax ka ogaado barbaarinta ubadka wax ka ogaado koorsooyinkaa bixisaan maxaa ka mid ah adigaaba macalimadka soo dhowow صحيح marka yani hadda parenting program yaal badan baa jira run ahaantii oo qof kasta kuleyba haddaan ka hadalno UK ama meel kasta ama London way jiraan meel kasta council kastaba wuu jiraa qayb oo ka mid ah oo kobcinta iyo waalidka la barayo parentingka waa la raadsan karaa meel kasta marka anakana waxaan ku base garaysanahay Camden London baa ku London Camden baa ka mid nahnay waxyaalaha aan garaynana waxaa ka mid ah program la dhaho strengthening family strengthening community kobcinta qoyska iyo kobcinta bulshada programkaas run ahaantiina waa nationwide meel kasta ka heli karta haddaa Ealing degan tahay haddaa North London degan tahay haddaa East London degan tahay meel kasta waad ka heli kartaa council kaste laakiin waxa waaye inaad adigii inaad proactive ahaatid adigii inaad yani raadsatid oo meelaha laga bixiyo inaad raadsatid run ahaantii anaka programkana bixinana waxyaalaha oo aad ugu si fiican waxaa ka mid ah af Soomaaligeeni afkeena Soomaaliyeed baan ku sameynaa aniga iyo my colleague oo directorka SYDRC ah Cabdiwahaab
marka waxyaalahaasna waxay ka caawinaysaa waalidka uu u arko yani luqadda inay yani ka hor istaagayso tacliinta marka luqaddii soomaaligana ku dhiganaa oo yani ku baxdaa programkaasa sameyno waa training oo 12 week soconaya oo waxyaalo badan isbedel badan oo waalidkii oo naftiisa ka arkaayo taasna saameyn waxay ku lahaanaysaa siduu ula xiriirayo ilmihiisa iyo sidii waxyaalaha oo agagaarkiisa resourceska yani waxyaalahu ka faa'iideysan karo meel kastuu degan yahay waxyaalahu ka faa'iideysan karo ama iskuulka ha ahaato ama communityga ahaato ama anything ha ahaato si uga faa'iideysan karo waalidiinta waad ogtahay aad baa mashquul loo yahay soomaalida waalidiintooda wadankan waa wadan aad mashquul badan aan ognahay xilliyada ay koorsooyinkaasu baxaan maxaa nooga sheegi kartaa si aan u ogaano waalidka daawanaya u yiraahdo maalintaan anu waqti baan heli karaa oo markaa programmadooda u samaystaan qof kastana ma kasoo qayb geli karaa soo dhowo aad iyo aad marka koleyba programmadan saan kuu sheegay konsoladoo dhan way rangareeyaan waqtiyaal kala duwanna way rangareeyaan marka waxaa ku dhiirigelinaynaa waalidiinta oo xaafadda Camden degan especially inay kasoo qayb galaan waxaa rangareynaa from adiga 11 ilaa iyo 2 waxaana tixgelinaa waalidiinta oo ilmaha iskuulka kasoo baxaayo waqtiyaashaas ilmaha uga soo baxayan especially waalidiinta ilmaha yar iyo waalidiinta kale oo ilmahooda kuwa yaryar oo weli nursery gaarin waxa u sameynaa crash oo ilmihii oo lasii maxaa la yiraahdaa lasii look after gareynayo ama yani laga sii warqabayo intii ayaga koorsada sameynaya marka crash aan u sameynaa oo waalidiintii oo ilmahooda yaryar ay soo kaxaysan karaan intii ayaga casharkaas ay qaadanayaan ilmahoodana loo sii ilaalinayo aad iyo aad waa maqlaysaa waxbaad baranaysaa ilmihii yaraana waa lagu sii haynayaa kuwii kaloo carruurtooda xoogaa yaro waaweyn iskuulka ku jiraana 11 ilaa 2 soo iskuulkii waa ka gaaraysaa waxna waa soo baranaysaa afkaaga hooyaa lagugu barayaa adigoo aqoon guuraya ah ayaad soo baxaysaa oo waxaad horey ogeyd ka badan og waana waxa ugu wanaagsan aqoontuna waxaa la yiri waa iftiin la'aan knowledge is a power bay yiraahdaan gabagabadii waa maxay ereyga ugu dambeeya aad jeceshahay inaad bulshada Soomaaliyeed ku tiraahdid marwo Maryam Cabdisolow aad iyo aad yani waxa ugu muhiimsan aan jeclaan lahaa bulshada Soomaalida inaan ku dhiirigeliyo asaaska nolosha horumarkeeda waa nolosha qoyska yani hadda waxaa jirta gabaya oo Irish ah waxay tirisay gabay oo dhahayso adduunka waxaa dama inaa wax ka bedelo marka uu suurtoob weeday marka dhalinyaro ah adduunka dama inaa wax ka bedelo suurtoob weeday waxaa tiraagareeyay inaa yani wadankan degan inaa wax ka bedelo uu suurtoob weeday waxaan tiraagareeyay adiga yani dadka ugu sokeysa communitygayga ama bulshada ku dhex jir inaa wax ka bedelo uu suurtoob weeday marka waxaa tiraagareeyay inaa familygayga wax ka bedelo taasna uu suurtoob weeday marka waxay dhahday waxaan realize gareeyay ama yani iftiimay markaan dhima rabay waxaa iftiimay inaa haddaa isbedel aan naftayda aan sameyn lahaa taas waxay ka caawin lahayd isbedel iyo horumar qoyskayga taasna waxay ka caawin lahayd bulshada because markaa qoyskayga isbedelo qoysaska kale oo deriska iyo waxaas iyana wax badan baa ka bedeli lahaa haddana taasna waxay naga sii caawin lahayd inaa wadankeena hagaago hadhowna inaa adduunka wax ka bedelo marka taas waalid kasta waxaan ku dhiirigelinayaa naftaada ka bilaaw iyo haddaa rabtid horumarka ilmahaadana waa waqti qaadanaysaa resources iyo effort iyo energy baa laga rabaa yani iyo adkeysigaasna wuxuu ka imaadaa inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum yani adkeysigaada wuxuu badanayaa markii aqoontaada sii ziyaado aqoontana markastaba waxa laga yani markasta loo baahan yahay waaye alcilmu min almahdi ila allahd yani markaa dhalatid ilaa aad ka dhimanaysid waxaa raba markastaba inaad sii ziyaadid aqoontaada marka insha allah tacaala waalidiinta Soomaalida way dadaalaan dadaalkiinana sii wada insha allah وهجاج داوديال مرو مريم عبدي هيد معلمات Soomaaliyeed hooyo marna maclimad ah aqoontii oo guuraysa idin wada doonaysan inaad qayb ka noqotaan isla markaana markaa ka qayb qaadataan arifta calisho ayaa idin soo saaray SYGRC community-ga kabiisa aan la gashan karin oo mahad celinayna Cabdiwahaab iyo waliba Muno oo qayb barnaamijka ka ahaa Maryam ayaa igala qayb qaadanaysay oo hawaa SYGRC inaanu barnaamijyo kale ka samayn doono haddii ilaahay mustaqbalka dhow intaa ka hor wali arifta calisho ayaa anigu waxaan leenahay waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonimo waa mahadsantiin